si toos ah waxaan ugu trade gareynaynaa MT5-kayga insha Allah sida arkaysaan just markets account-kana balance-giisa waxaa ku jirto $63 marka haddii aynu fiirino waxa way warbixin baa soo baxaysay soo warbixintaas oo unemployment claimskeeda ama NFP-ga yacni lacagta dollarka ee runtii xoojisay sida aragtaan very strong bullish bay ku socotaa maadaama numberkii la expect garanaya number ka yar ee kusoo baxday shaqo la'aanta ee hoos u dhacday iminka hadda suuqaas aragtaan oo very strong-ga waan ka hor imaan doonaa inkastoo contract trade uu yahay oo bullback aan ka faa'iideysanayo soo hadda haddii aan tago muxuu ahaa MT5-kayga toos baan u buy gareyn doonaa insha Allah trade-kani let's go bullback taa ilaa gaabka ay tagaysa baynu ka faa'iideysanaa insha Allah lot fiicanna waa isticmaali doonaa marka halkan waxaan isticmaali doonaa insha Allah 0.08 haddii uu wax yar maaragtay intergay uu dhaafo 0.08 baa ku buy gareyn doonaa because of target badan kama aynu rabno insha Allah waxaan waa bullback weeye suuqu sida aragtaan waa suuq beerisha waliba momentum xoogan ku soconaya laakiin strong key level baa haystaa oo mataqaanaa bullback tana rajeyna insha Allah inay si fiican igu dhaqaaqdo new candle hadda ii furmay soo si fiican uu igu furmay runtii week yar inoo sameeyo okay and then go 0.08 ku buy garey sida aragtaan tawakkalna cala Allah let's go markaynu isla aragna insha Allah trade-kani wuxuu ahaa trade-keenii horeeto maanta qaadanay saaragtaan isla naga saaray London session buu micnaha isla markii TP-geena laaday waliba sida loo soo dhaqaaqay fiir lacag ka edab daran yacni waa waxa uu qaraaray runtii suuqa qof kala kulmi karo way in TP-gaaga in isla laga saaro isla markii TP-gaaga laado ya haddii uu suuqu sii daato de waxa dheeraadniyo loss kale igu sii badan lahayd in trade-ka haysto Soomaa laakiin markii stop loss-ka laga saaro hadii TP-ga laado wallah yisiisu isku soo taangaray alxamdulillah soo ilaa meelahan gaabkan oo kale insha Allah waxa weeye ama ilaa gaabkaasi uu gaarayo waynu hayn doonaa insha Allah okay profit fiican baan rabnaa insha Allah inaan ka helno profit fiican baan rabnaa insha Allah inaan ka helno saa arkaysaan hadii $84 alxamdulillah marka la isku daro labada trade waxay noqdaan $20 profit soo hadaynu $100 gaarsiin xitaa waa alxamdulillah akoonka almost wax noqonaysa 40% ku dhawaada ku darnay that's enough for us askaga bixina insha Allah mid kale ha isku dayna insha Allah inaan lotkan camal isticmaashaan riski waa qaadanaya ma fahanti riski waa qaadanaya sida u fiican ma ayna u isticmaali kartid lotkan akoon uu capitalkiisa inta sida yahay xitaa akoon $100 ku jirto yani 0.08 inaa isticmaasho mamnuuc ma fahanti okay marka dhaqaaqana ku kalsoona insha Allah inuu dhaqaaq fiican noqonayo that's why risk uu qaadanayo saaragtaan $94 okay $25 waadana wada profit soo runtii hadduu $100 na gaarsiiyo alxamdulillah waana sii daadanaya suuqana kaliya bullback taas baynu ka rabnaa exactly alxamdulillah you see $110 soo wax ka badan inta ma in karo saacadii loogu la soo register garay that's all fully close alxamdulillah $109 soo aragtaan hadduu daadashadiisa bilaaba suuqaana saaxib hadda fiirino trading view-ga that's all saaxib ma la sii hayn karaa intaa ka badan to be honest oo arkaysaan hadda waxaa isku dayay inta live stream-ka ku jiro inaan wada aragna insha Allah okay you see hadda gaabkii waa la imaaday soo arkaysid soo aan isla aragno marka hadda daadashada meesha ay ka bilaaban leedahay runtii waa halkaani dollarku waa very strong soo arkaysaan so boom waa saaray runtii TP-gaas ya laakiin waxa way mataqaanaa shalaytay waxaas oo dhan ma jiraan because of target-kayga waa gaaray aniga akoonkayga alxamdulillah meesha waa meesha ay ka bilaa laakiin fiiri waxa arkaysaan suuqan strong buu haddana waa ka hor imaaday suuqan arkaysaan oo sidaan u soo daadinay ya alxamdulillah haddana bullback-tana waa ka faa'iideysanay soo candle-kaas uu ku furmaa u jeedaya hadda salki waa bilowday saaxib impulsive hadda waa bilaabanaysaa daadashada ya already adiga arkay inta inii sheegay Soomaa nabadgelyo